madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa booqasho rasmi ah ku jooga magaalada Nairobi ee caasimadda dalkaasi Kenya halkaas oo kulamo muhiim ah kula yeeshay madaxda dalka Kenya iyo wakiilo ka socda beesha caalamka. intuu ku sugnaa Nairobi caasimadda dalka Kenya madaxweyne Cirro ayaa la kulmay madaxweynaha Kenya William Ruto si ay uga wada hadlaan xiriirka labada dal iyo iskaashiga gobolka. sidoo kale waxa uu la kulmay safiirada beesha caalamka ee ku sugan Nairobi isagoo uga waramay xaaladda Somaliland iyo dadaalada ay wado Somaliland inay ku hesho aqoonsi heer caalami ah. madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ayaa sidoo kale ka qayb galay xaflad ay jaaliyadda jamhuuriyadda Somaliland ay ku dhigatay dalkaasi Kenya taasoo lagu muujinayay taageerada ay u hayaan madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland. xafladan ayaa ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay iyadoo ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u tiro badan oo muujiyay farxadda iyo taageerada ay u hayaan madaxweynahooda. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa ka sheegay xafladaasi inaanay booqashadiisu ahayn mid dalxiis ah balse ay tahay mid uu ugu talagalay inuu la kulmo madaxda iyo wakiilada beesha caalamka si ay uga wada hadlaan mustaqbalka Somaliland. ugu dambeynna xafladaasi habeennimadii xalay toore ka dhacday dalka Kenya caasimadda Nairobi waxaa ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland waxaana ka mid ah hadaladiisii. jaaliyadda Somaliland ee dalka Kenya kala soo qayb galo munaasabadan weyn ee nagu qaaliga ah oo xuska 18 May oo maalintii xornimadii Somaliland dib u soo noqotay magaalada Burco. waa maalin nagu weyn oo maalin naga mudan inaynu xusno annagana sharaf bay noo tahay inaanu jaaliyadda kala soo qayb galno maanta munaasabadan oo aanu dib ugu dhignay safarkayaga si aanu idin kala soo qayb galno. waxaan u mahadnaqayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha munaasabadan ee u helay fursadda oo aan rumaysnahay inaanay Nairobi qura ka iman ay dalka Kenya dhammaantii ka wada yimaadeen. waxaan u mahadnaqayaa qabanqaabiyeyaasha munaasabadda oo ay ugu weyn tahay safiirka iyo safaaradda iyo ambassador Dakar iyo dhammaan shaqaalaha safaaradda iyo jaaliyadaba oo isugu tagay qurxinta iyo weynaynta munaasabadan. waxaan ugu mahadnaqayaa cid kasta oo ka soo qayb gashay ama Somaliland ka timi ama dalalka kale bay nooga timi ee iyaduna ka soo qayb gashay. waxaan u mahadnaqayaa marti sharafta inagala joogta dalka Kenya ay ka mid yihiin xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta kale. waxaan u mahadnaqayaa Professor Lamumba oo munaasabadan si weyn u qurxiyay caawa haddii la yiraahdo. taariikhda maanta waxay la tahay inaan caawa halkan koobi karin. Somaliland waxay xornimadeeda qaadatay 26 Juun 1960. Soomaali jacayl awgeed iyo inay isu keento shantii Soomaaliyeed ayay xornimadeeda iyadoo wax shuruuda ku xidhin ay kula midowday Soomaalidii Talyaanigu gumaysan jiray oo 5 cisho kadib xorowday. waxaynu ahayn laba state oo inagu ka daaweynayn laba qaran oo safri noqday xilliga Afrika ay gobonimada qaadanaysay. maynu ahayn gobol ka mid ah oo ku biiray Soomaaliya laakiin laba dawladood oo siman oo labaduba laba gumaysi xornimadooda ka qaatay bay nahay. Somaliland wixii ka dhacay
أنت أكون عاي شعبي جيدا أو جيد شعبي كسومالي نحو قوستي مركي أيضا حرية سومالي لان سديدي توكي مي وهلا يسوي برعو دمان dadkii ka yimid gobolada Soomaaliland gobol kasta Soomaaliland inuu joogay markaas reer Sool baa joogay reer Sanaag baa joogay reer Togdheer baa joogay reer Berbera joogay reer Hargeysa joogay reer Awdal baa joogay si midaysan ayay go'aanka u qaateen inay gobonimadoodii ay geeyeen 60kii xamar kala soo noqdaan Soomaaliland maalinta laga bilaabo danaheeday ku mashquulsanayd dhismaheeday ku mashquulsanayd nabadeeday ku mashquulsanayd dimuqraadiyadeeda iyo doorashooyinkeeday ku mashquulsanayd sida la sheegay anuu xalay madaxweynihii lixaad shan madaxweyne iga horreeyay waa isla waddanka qura Afrika si nabada oo qoriisu dhiiba ay madaxweynayaashu isugu dhiibeen waxaynu kaga duwannahay dhammaan dalalka Afrika inaynaan mucaarad iyo muxaafid kala lahayn markii qarannimada Soomaaliland joogto waxaynu kala duwannahay markaynu tartamayno taasina dimuqraadiyadda ay ka mid tahay sharciga iyo dastuurku wuxuu inoo xalaaleeyay inaynu xisaab samaysano qofku xisbigu dooru geli karaa muwaadinku waanu tartamaya tartan baanaynu ku nimaadnaa mas'uuliyadaha qaranka ay ka mid yahay baarlamaanka ay ka mid yahay deegaanka oo ka mid yahay madaxweynuhu Soomaaliland waxa la qiray in doorashooyinkoodu ay yihiin sidoo professorku uu sheegay kuwa ugu fiican laakiin aynaan iibgeynin weli inaynu ugu doorasho fiican ay Afrika Soomaaliland waa dal qani ah oo hodana oo macdanta ka hodana oo xoolaha ka hodana oo beeraha ka hodana oo kalluunka ka hodana oo taariikhda ka hodana laakiin weli Soomaaliland haddana uma soo bandhigin dunida xukuumadda cusub waxaan u sheegnay dunida inaanay Soomaaliland ka rabin deeq ay ka rabto inay iskaashadaan inay wax wada yeeshaan inay wax maalgashadaan inay horumarinta oo iyaguna macaash ugu jiro ay dalka gashadaan Soomaaliland waxay soo dhaweynaysaa maalgashiga cidda gashanaysa Soomaaliland hadduu qof Soomaaliyeed yahay hadduu Kenyan yahay hadduu Ugandese yahay hadduu Ethiopian yahay hadduu Djibouti ka yimi hadduu South Africa ka yimi waxaanu qaban doonaa shilka maalgashiga Soomaaliland haddii Ilaahay ka dhigo shirka waxa ka soo horeeyay professorka oo ay sheegay inuu bisha 8aad Soomaaliland keenayo konton maalgashade oo dalka Kenya ka imanaya haddii Alla ka dhigo waxaan jecelahay in waqtiga aan ku beegno shirka kale aan Soomaaliland maalgashiga haddii Alla yiraahdo jaaliyada halkan waa jaaliyada ugu daaweyn jaaliyadaha Soomaaliland saas leeyahay 200 sanadood baa ku sugan tihiin dalkan waxaad tihiin dad Kenyan muwaadiniin laakiin maydaan ilaawin protestiskii halka ka timaadeen aad baan idinku waxa laga yaabaa in badan oo jaaliyada ka mid ah af Soomaaliga inuu ku adag yahay waxaan laakiin ugu mahadnaqayaa inay wali af Soomaaliga ku hadashaan 200 sanadood kadib sida wasiirku sheegay dunidu wayna soo dhaweynaysaa waxay noo soo dhaweynaysaa waxaynu qabsanay waxay noo soo dhaweynaysaa nabadeena waxay noo soo dhaweynaysaa doorashooyinka aynu qabanay waxay noo soo dhaweynaysaa inaynu nahay dad iyagu wax califaya oo nabadda samaysanaya oo aan loo samaynaynin Soomaaliland waxay kaga duwan tahay Soomaalida iyo dalalka kale ee Afrikaba in iyadu nabadeeda samaysatay oo aan loo samaynin
إنك أيو إنهم يسمين مرايكر إنهم يسمين إما كان لحب كل هذا اللي يراه نهوب كي كقاضي وما تكون شيء تابر بشار أنت الله لاقي دوري العقد بدن بيكون بحساب لكن أنا دوري العقد ما ناوي ديسن أوركا أفريقيا ما ناوي ديسن جمعية القرماء كان حسب ما ناوي ديسن أنا قاعد أسكت الشمي عقاش يضيع سلادين تيضا علماء ضيضا دولة ضيضا أي أسكت الشطي يا الشعب غيره وهذه شيء يا سؤال اللي عندنا هي ولي تحية دولة وغرسن تحية ذلك وقلنا بضبضر xildhibaanadii دي كينيا كيمية كسوق غريستي يتمن كمي وهاي شيء يعني هبين كي حفلة دبر دماطي لبيه tobankii kadib inay baqanayeen in shaqada laga caawiro laakiin waxay arkeen in meeshaasi aan waxba jirin oo cid wada nabad tahay professor wuxuu noo sheegay Soomaaliland wuxuu ugu yaabka badnaa ku arkay inay ahayd marka la eedaamo in lacagta miisaska lagaga tago si loo soo tukado wuxuu dalalka kale Afrikaanku arinta ay ku hodmin hadhow lacag soo noqon maayaane anu wafdi baan keenay Soomaaliland 1999 waxay arkeen dahabka iyo lacagta miisaska yaalla ee aan cid ilaalin Kenya dad gasho oo sabab meel ka soo sarifan lacag askari baa hortaagan isagoo waliba albaab ku jira oo aqal ku jira laakiin naga lacagtana miisaska la dhigaa dahabkana miisaska la dhigaa marka nin gaal oo nala socday wuxuu moodayay wax loo sii salaxay oo lagu indha sarcaadinayo markaan hoteelkii geynay buu ku soo noqday dabada wuxuu arkay wixii wali yaalaan markaasuu rumaystay inay runtahay runtii waxaan idin sheegaynaa inaad tihiin jaaliyad xoog weyn jaaliyad fac weyn jaaliyad isku duuban jaaliyad waddanka saamayn ku leh oo ganacsato ah oo mas'uuliyiinta dalka ka mid ah oo madaxda dalka ka mid ah oo xildhibaanada dalka ka mid ah Faadumo halkan bay ku dhalatay abeedo ku dhashay awgeedo ku dhashay baa laga yaabaa marka ay maka oo xafilaya markii ugu horeysay Soomaaliland tagtay inay ahayd laakiin aad bay uga soo yaabtay وطاي مك عالم كله كنيس وعلى جاريد كل بقادين يا أنا جاريد اسكت دوبان تهاي أنا شرف وينو سو هيسين أنا إنه ولا شقينه أنا دل شقينه أو إذا ودك يدي لاوين أو قف كي مال قشنا يوكسون هو كرا أو قف كي وحسيد دونه وقصون هو كرا ساعات دونه waxaan idinku bishaareynayay jaaliyada in dawladda Kenya imaka ogolaatay in la bilaabo duulimaadkii tooska ahaa ee u dhaxeeya Hargeysa iyo Nairobi waxaana ka mid ahay waxyaabaha aan kala hadalay madaxweynaha waxyaabo badan oo sarbaraysan ah way soo socdaan Soomaalidu yahadhow yaabe Somaliland Soomaali ma nacba lixdankii waxa uu geeyay Soomaali jacayl laakiin dee way iskaga soo noqotay Soomaaliya waxaan u sheegayaa oo dadka ku mashquulsan arrimaha Somaliland waqtiyoodii ka lumin hawlihii naqabsada Soomaaliland idinkeedu kuma mashquulsana waxay ku mashquulsantahay hawlaheedana way wadanaysaa hawlaheedana ma joojin kartaan kuwiina ka adkaana
nabadiina ka adkaada midnimadiina ka adkaada maamul goboleedyadiina ka adkaada weli waan idinku ducaynaynaa waxaynu doonaynaa inaynu noqonno ummad si dhinac taalla oo nabad ku wada noolaata oo jaar ah haddii ilaahay ka dhigo waxaan kaga tegayaa inaan dhowr erey ku idhaahdo maadaama ay nala fadhiyaan dad aan af Soomaaliya ku hadlinin erey mahadnaqa inaan ku idhaahdo It's a great honor for me and my delegation that members of the Kenyan Parliament and Senate and Professor Lumumba, who is a great son of Africa, is participating with us in this great day of Somaliland. On behalf of myself and my delegation, I thank you very much. As President of Somaliland, on behalf of my people, I want to offer for free how peace is made. A homemade peace is made in Africa. We want to provide for free how DDR projects, homemade projects, are made in Africa. We made peace. We made DDR projects in Somaliland. We have the experience, and with the facilitation of the professor, I want to visit every African country to provide our experience for free. Thank you very much. I thank you all, the Somaliland community in Nairobi, the embassy and the ambassador and the staff of the embassy, and everyone who assisted us in making this celebration successful. Thank you all, and you will continue your celebration maybe until at the dawn. Thank you very much.